بسم الله الحمد لله رب العالمين. مركوبات waxaan galnay sanad cusub 2016 sanad cusub alxamdulillah ilaahay khayrkiisa inoo waafajiyo ummadda Soomaaliyeed waxaan ugu hambaleynayaa kuwii guul iyo baraaro ku gaadha 2016 ku dhamaysta gaar ahaan Jubbaland waxaan u rajaynayaa khayr tiro badan waxaan u rajaynayaa dawladnimo waxaan u rajaynayaa cagaheeda oo ay si fiican isugu taagto ma sha Allah taasaan ilaahay uga rajaynayaa waxaan rabaa barnaamijka 2006 qaabka diyaar garowga shirka madasha wada tashiga inaan si fiican uga hadlo qaabka ciidan ahaan iyo ka booliis ahaan aan ugu diyaar garowno annagu ka booliis ahaan waxaan rabnaa si ku habboon mujtamaca inaan ku wargelino saqiir iyo kabiir yar iyo weyn qof walibana uu si ku habboon hawsha uga qayb qaato gacmo furan dadka lagu soo dhaweeyo wax kasta oo laga shakeeyana laga wada hawlgalo ka ciidan ahaan waxaan doonaynaa si ku habboon oo aad iyo aad farxad ay ku dheehan tahay waxa markan Kismaayo looga dhigay waa amniga oo 100% aan oran karno dadkeeda shacabka ka shaqeeyay ciidamadeeduna ay ku mahadsan yihiin maalin iyo habeen bay heeganka ugu jiraan taas kaga baxaya waxaan rabaa ciidanka booliiska oo kale iyo ciidamada amniga marar badan waxaa dhacda in dad ay sameeyaan barnaamijku qaraabasho ciidana oo mar iyo 2 iyo 3 iyo 4 toon aan ahayn dadka ayaga ah xalay ugu dambeysay dhacday intii albaab la qaraacay in la yiri ciidankii amniga naga fura lacagna lagu dhacay qofka barnaamijka noocaas oo kale koow marka ugu horeysa dadka shacabka waxaan u sheegaynaa in dadka noocaas oo kale sameynaya oo mar walba ka shaqeynaya barnaamijka asaga xiriyaha amniga way yaqaanaan haday tahay nabad sugid iyo haday tahay booliisba inay si ku habboon u yimaadaan saacad kasta haday habeen tahay iyo haday maalin tahay taleefanadana waa hayaan haddii intii albaabkii lagu soo qaraacay qofkii uu aamusaan waxay siinaysaa chance qofkii tuugaa marka waxaan rabnaa dadka ayaga ah si ku habboon mar walba inay ula soo xiriiraan xiriyaha inayna cadawga gacan siinay dadka tuugta oo amniga isu sheegaya dadka ayaga ah haddii intay soo sheegaan aan gacanta ku dhigno oo aan qabanno waxaanu waafajinaynaa sharciga waxaanu ka qaadaynaa tallaabo aad iyo aad u adag oo ciqaab dadka ayaga ah ciqaab bay nagala darsayaan waxaan ilaahay ka rajaynaynaa inteedii faraha badneed waa ku guuleysanay mar iyo 2 iyo 3 toona ma dadka tuugta noocaas kale ugu qaraabanay inaan soo qabanay haddana inta dambana waan israacin doonaa insha Allah waatahay taliye bariyihii ugu dambeeyay waxaad sameynaysaa howlgal aad u ballaaran howlgalladaas dadka aad ku soo qabateen maxay howlgallada dadka aan ku soo qabanay xaqiiqiyan qofka bini aadamka horta waad ogtiin oo dadkan shabaabka ama dadkan qawaaridta waan isayna mar walba ma aha dad ajnabi ah intooda ugu faraha badan waa dad Soomaali ah waa dad deegaan ah waa dad aan isku lahjadnahay waa dad af Soomaali ku hadlaya xaqiiqiyan qofka bini aadamka marka ugu horeysa markii metel xaafad oo kale information laga soo siiyo waxaan isku daynaa habeen iyo maalin saacada ayada ah inaan meesha u kacno baarno qofkii iskaabula ahaan oo kale ama magaalada ku cusub anagu oo aan xuquuqdiisa ku xadgudbaynin baa waan u yeedhnaa waan baarnaa qofkii ay wax ku cadaadaan hay'adaha ay qusaysay maxkamadaha u gudbinaa qofkii kalena waan sii deynaa si xorriyatul qowl ay ku dhahantahay oo bini aadamnimo ay ku dhahantahay waan u sii deynaa kaas waa tahay taliye intii aad wadeen howlgalka maalmahan ma jiraan dad waxyaabo amniga lid ku ah aad ku soo qabateen muqaadaraad wax ka baxsan oo kale magaalada hadda 100% way sifaysan tahay waxaan u maleynayaa 100% waad ogtiin hadda muddo aan u maleynayaa ilaa 5 ama 6 bilood oo kale haba yaraatee bam xataa lagama tuurin magaalada Kismaayo 100% amnigeedu aad u sugan yahay cadawga intiisa ugu faraha badnay waan dabar jarnay muqaadaraad wax ka baxsan oo falalka amniga muqaadaraad kale intiisa uu ka qayb qaataa laakiin ma jiraan dad noocaas hadda ma jiraan waatahay taliye 10 bisha waxaa ka furmayay magaalada Kismaayo shirka higsiga booliska door intee la eg ay ka qaadan karaan dhanka amniga amniga waxay ka qaadan karaan door la xaal leh 85% amniga booliska ugu badan booliskuna sideeda banaanba kama marna shacabka markii la yiraahdo dadka shacabka iyo ka booliis ahaan qaybta ugu ballaaran baan qaadanaynaa ayada oo shacabka yagu
aan kaashanayno oo wax kasta oo amniga lid ku ah ay shacabka laftooda naga gacan siinayaan noo soo sheegayaan si fiican ay nagala shaqaynayaan teleefanadana ay soo wacayaan boqolkiiba boqol wax qayb lixaad laan ka qaadanayna dadkaygana waxaan ugu baaqaynaa barnaamijka asaga inay dhegta u taagaan guntiga dhiisha iskaga dhigaan wax kasta oo khalkhal gelin kara amniga ama shirka wada tashiga in ay ka feejignaadaan ciidamada amniga lambaradooda way hayaan si habboon ay soo wacaan aad iyo aadna barnaamijka dhegta ugu taagaan waa tahay taliya waxaa sheegtay in 10 beri howlgalla isdaba joog ah magaalada laga sameyn doono howlgalladaasi inta ay jiraan magaalada bandow u gaara ma saaran si waxaa jira bandow loogu talagalay waqtiyada qaar in aad baahisaan wixii barnaamij ee bandow ku salaysan hadda ma oran karno mana hor dhacayna barnaamijka asaga bandow baa dhici doonta iyo ma dhacaysa midna laakiin waqtiyada ku habboon shacabka waan la socodsiinaynaa inay dhacdana waa macquul insha Allah waan gartay taliye su'aasha ugu dambaysa haddii aan ku weydiiyo xiriirka ka dhexeeya booliska iyo shacabka tuulageen boqolkiiba boqol waxaa dhacda marar badan hadda ciidamada Jubbaland ama military ha noqdaan ama nabad sugid ha noqdaan iyo police markii la yiraahdo xaqiiqan kelmadda police waad fahmi kartaan waa icaaw waxaan ognahay ama wada shaqaynta naga dhaxaysa aan ku sifayn karnaa ciidamada booliska iyo shacabku ma kala marna way ku soo cararaan dadka way ka xigtaystaan anaguna shacabkanaga boqolkiiba boqol waan u mahadcelinaynaa boqolkiiba boqol waxaan aaminsanahay haddii shacabkanagu ayna nagu tiirsanayn ayagu ayna noo adeegaynin habeen iyo maalinba wixii xog ayna noo soo sheegayn waxba inuna noo qabsoomeen aad iyo aad baan shacabkanaga uga mahadcelinaynaa booliiska iyo dadka shacabkaana waxaa ka dhaxaysa wada shaqayn la taaban karo taliya waxaa sheegtay